Caabudwaaq muddooyin waxay ahayd magaalada ugu amniga badan uguna istiraatiijisan xagga ammaanka gobollada Galgaduud iyo gaar ahaanba gobolka Galmudug. Hase yeeshee galabta casarliiqa iyadoo uu socdo koobkii iskuulada ayaa waxay xabadu ka bilaabatay garoonkii lagu dheelayay ee Siiga Dheere muddo ayaa lagu ciyaari jiray uuna ahaa garoonka ciyaaraha ee degmada Caabudwaaq. Kastaba ha noqotee galabta ayaa waxaa lagu casarliiqsaday xabad ka yoomaysa garoonkii lagu ciyaarayay iyo laba qabiil oo isku hor fadhiya garoonkii istiraatiijiga ahaa ee Siiga Dheere. Sida loo xaqiijiyay 3 qof oo dagaalamayaashii ah iyo xabadu wiifta ugu tagtay ayaa halkaa ku geeriyooday. Yeeshee maysan helin labada beelood ee walaalaha wax kala dhex gala, hadday tahay odayaasha dhaqanka, hadday tahay ciidamada dowladda federaalka, iyo hadday tahay kuwa maamul goboleedka Galmudug, iyo hadday tahay kuwa booliska. Badda ayaana ka bacdi si iskeeda isaga istaagtay markii dambe.